أمور الدنيا ودين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. ساكا waxaanu kormeer ku tagnay tuulada wada Makaahil oo hadda aanu taaganahay riigii magaalada ay ka cabi jirtay dhawaan siday deegaanku oo ka warqabaan waxaanu keenay wafdi uu hogaaminayo wasiirka horumarinta biyaha Maxamed Muuse Diiriye oo aan uga warnay riigan 2018kii ayaa ugu dambeysay biyo laga cabo alxamdulillah wasiirka waan uga mahadnaqayaa soo fulinaya xukuumadii horta madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi markii maalinta aan tusnay riiga mushkiladda haysataana ay tahay markasta iyadoo deynimadu ay gubato wasiirku wuxuu si degdeg ah uga soo jawaabay barota inuu naga soo caawiyo deynimadii riiga uu noo keeno oo uu geliyo maanta ceelka waa laga cabayaa hase yeeshee marka deegaan ahaan la eego sidii la doonayay inuu riigu u shaqeeyo ma shaqeeyo waynu arkanaa oo xoolihii waa kuwaas oo way ka cabayaan laakiinse ha ka cabaan biyihii la doonayay inay sidii xawliga ahaa u socon lahaayeen ma arkano oo muxuu ahaayay uma socdaan waxaan qabaa markaasi riiga qodaalkiisa ama ha ahaato inuu qaadkiisu waxa hore uu ahaa in 265 mitir ayuu qodan yahay riigu haddana biyaha malaha intii afkiisii hore markii la gaaray umba la joojiyay marka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo ah xukuumadda waxqabadka kule wasiirka biyaha deegaan ahaan marka la eego deegaanka deegaan ballaaran weeye waa deegaan aan lahayn laf oo barkada looga sameyn karo waa deegaanka aynu arkano min halka ilaa Itoobiya ilaa iyo marka laga hadlo ilaa abuurin ilaa deegaanada ka sii shisheeya oo dhan muddo 30 kiiloomitir meelahaas ayaa muxuu ahaayay looga soo lugeeyaa oo xooluhu ay uga yimaadaan haddana waxa weeyaan biyo ku filan deegaan ahaan ma helaan marka xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu hogaaminayo oo wasiirkiisa biyuhu uu u matalo markaasi siyaasadda waxaan ka codsanaa wasiirka biyaha in il gaara lagu eego deegaankan oo run ahaantii iyo deegaanada kale ee hoos yimaada markaasi oo u baahan markaasi biyo inay helaan maadaama ay ku yaalaan meel aan la falahayn wasiirkana waan uga mahadnaqnaa baaqaygii hore sidii uga soo jawaabay wasiir waxaan leenahay inta ay in ka badan waa laga sugayaa waana muxuu ahaayay in waliba waxaanu aad wasiir kaaga codsanaa maamul ahaan in maadaama deegaanku deegaan ballaaran yahay in loo adoreeskareeyo loo analiskareeyo in riig kale oo labaad oo caawiyo kan maadaama kan markiisii hore lagu khasaaray in muxuu ahaayay loo hirgeliyo deegaanka si dad iyo xoolaba markaasi ay uga helaan markaasi wixii laga anfaci lahaa midoo kale mid kale waxaa jirta iminka riiga dararkiisa waynu arkanaa dararkiisa dhammaantood waa wada burbureen oo way jajabeen qasabadaha laftiisu muxuu ahaayay biyaha sidii la doonaya ma soo qaadayaan iyaga laftoodu waxay u baahan yihiin in la dayactiro oo muxuu ahaayay darar fiican oo xoolo si fiican uga cabi karaan bal inta iminka kusii jirta in loo sameeyo oo sidoo kale taangiga biyaha weyn isaga laftiisu biyaha uu sii deynayaa waxay u baahan yihiin taangi labaad bal horta intay sii joogta in biyaha loogu kaydiyo in loo sameeyo dararkana si dayactir degdeg ah loogu sameeyo iyo qasabadahaba ayaanu ka codsanaa markaasi wasiirka wasaaradda biyaha inuu markaasi horena uu arkay indhihiisa ayuu ku arkay iminkana waad arkaysaa dararkii xoolaha la doonayay inay ka cabaan waxa loo dhigay foostooyin baa dhex yaala oo geela markaan arkana foostooyin baa u dhex yaala loo kale foostooyin baa u dhex yaala taasoo kaskaraysa burburka ku yimiday muxuu ahaayay dararkii loogu talagalay markaasi in la dhiso oo iyaga laftooda aan standardkii saxda ahaa la doonayay in loo dhiso aan loo dhisin markaana balota inta waxa dambe ha dambeeyaane balota repairka degdega ah in loo sameeyo inta xooluhu si ay ugu sii yarcabaan ayaanu ka codsanaa markaasi wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo markaasi bolisiga siyaasaddiisa wasaaradda guud ahaanba aad iyo aad baad u mahadsantihiin waxaan u mahadnaqayaa sidoo kale gudoomiyaha degmada dacagta iyo gudoomiye ku-xigeenkiisa oo kormeerka saaka iyaguna muxuu ahaayay aanu goobta ku kulmay waa idinka mahadnaqayaa waayo waa laba degmo kule jaara oo degmada farweyne marka horeba markaa hoos iman jira iminkana laba degmo oo si fiican uga shaqeeya weeyaan dadku waa dad isku wada mid ah wada dhashay isku dan ah isku tusaale ah marka danta guud inaan ka wada shaqeyno waa waxaan xukuumad ahaan iyo boolis ahaan aan u qaabsanay xukuumadda aad iyo aad baan u mahadsantihiin iyagana waa mahadnaqayaa gudoomiyaha degmada farweyne kusoo dhaweyn doonaa iminkana بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد aniga oo ah Ibrahim Xasan Xuseen ahna gudoomiyaha tuulada wada Makaahil waxaan halkan ka salaamayaa maamulka degmadeyda gudoomiyaha
maxamed cabdi gargaare iyo gudoomiye ku-xigeenka maxamed xasan iyo wafdiga la socda saxaafadda dadweynaha goobta jooga iyo ummadda reer Soomaaliland meel kastoo ay joogtaba waxaan ku salaamayaa magaca islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaan waxaan halkan ka salaamayaa madaxweynaha qaranka madaxweyne ku-xigeenka wasaaradaha iyo dhammaan howlwadeennada deegaamada wasaaradaha deegaamada ku shaqo leh hawl kastoo ay tahay ka qabta waxaan aad u sii salaamayaa wasiirkii horumarinta biyaha ee halkan loogu yimid maalintii dhoweyd iyada oo ummadda cabaysaa ooman tahay ayuu isa soo taagay goobta maalmo yar gudahoodna wuu hawshii uu noo ballan qaaday madaxeedii ayuu ku bilaabay wataa maanta maasha alla la cabayo maanta la saddex dadkii halkaa tubnaa ee ugu yimid way fuleen sawaabkiisana isaga iyo intii kale ee ka hawl gashayba way leedahay waxa weeye ceelka waxa ka xumaa daynabadii waa la keenay waxa kale oo la raaciyay xarigii taxdiirka ahaa ee ilaalinta daynabada ee dibadda u soo baxayay oo aan awal hore ugu jirin dhowr goorna inuu isagu sababay aan u malaynayno daynabadoo xumaan jirtay taana wuu dhaaliciyey saacaddii guud qumbalsoorka dibaddana wuu bedelay oo iyadana sideeduu u bedelay haddana hawlo badan ayaa hadhsan hawlaha dararkii waad arkaysaan qasabaadkii way jajabeenoo 2 sannadood buu faliyey waxa daadinaya xataa taangigu wuu daadinayaa markaa hawlahaana waxay u taallaa cid kaste oo ay damaq gelinayso waa hawl u taalla annaguna heer degmo iyo heer tuulaba wixii aanu qayle iyo itaalba karo diyaar baanu nahay haddana waxaanu leenahay wasiirka intaa ha kaga hadhin intaa cid adu kaashataba hataa waxaa jirtay muddo dhoweyd hay'adda Hafyoko oo timid halkan waxay noo sheegeen inay riigga dayactiraan haddana nasiib wanaag waxa ka soo horreeyay wasiirka imaatinkiisii hawshii waji kale u fushay macataa waxaan leeyahay wasiirka iyo wasaaradduba ha xusuusnaadaan doraad hay'addaasoo halkan noogu timid waxaanu ku nidhi hawshii bar waa la qabtay barka kale se idinka idiin taalla haddana dee wasaaradda ayaa maamusha oo qorshayn baa jirta waxaan leeyahay taa qudheeda ha la xusuusnaado ha loo soo oggolaado hay'addaasi inay si degdega bilaha jilaal ee adag ay noo samayso taangiga iyo dararka iyo qasabadaha dibadda u soo baxaya marka waxaan leeyahay wasiirkuna 100% buu aad ugu mahadsan yahay ballanqaadkii uu noo ballanqaadayna si fiican ayuu fuliyay deegaankuna dadka deegaanka wuxuu joogaa may kuma filla dadka kuma filla deegaanku waa deegaan ballaaran riiguna maaha waxyaabaha shaqsigu leeyahay ee inta la huune ka cabto riig haddii aad maqasho waxa weeye wax makhluuq leeyahay hadduu socoto yahay hadduu deegaanka yahay hadduu ku ka darugsan yahay waa shayada waqfiga ee ummaddu wada leedahay sidaa aawadeed waxa lagaga soo arooraa dhul badan meel dhan riig nagaga dhow yahay ma jirto bari nagama xigo galbeedna waxa noo xiga ka dameera boob oo isaguna deeno 20 kiiloomitir ama 25 kiiloomitir noo jira ayaa wax riiga galbeed naga xiga hareeraha waxba kuma leh dadka marka 5 loo qaybiyo hal buu ku filan afarta kale way ku ooman yihiin waxay u baahan yihiin dadku badbaadin waxa weeye waraabin ma imika waa badbaadin sida marka bilahan la eego ummaddu badbaaday u baahan tahay ama xaggan ha naga xigto ama goobtanba ha ahaato meel aliyaala meeshii biyo laga helo ummaddu waxay u baahan tahay badbaadin cidii badbaadinaysa waxaana ugu baaqayaa hay'adaha qurba joogta wasaaradaha dawliga ah ashqaasha ka dhalatay deegaamadan ee ka soo jeeda cid kaste waxaan leeyahay dadku badbaada ayuu u baahan yahay xagga biyaha in qalbiga lagu hayano way tahay ilaa maalmahan bilahan soo socdaana waa bilihii ugu adkaa
bisha aynu dhaafnay ee labaad taa saddexaad ilaa taa afraad haddii ilaahay gu ina siiyo wixii ka dambeeya inuu gu noqdaa laga yaabaa bilihii u adkaabaa lagu jiraa dadku gurmad buu u baahan yahay gurmad goobtaasaanu joognaa habeenkii waxa cabba qaybta xoolaha guuri kara sida geela oo kale habeenkii buu cabba maalintiina waxa cabba wixii macasta iyo nacas ee adhiga iyo lo'da iyo waxyaabo caynkaas dhaanka dadka iyo waxyaabahaas cabba marka dadku badbaadi u baahan yahay waana lagu qaylinayaa cid kaste oo ka damqanaysa hawsha haysata deegaanka degmada Farweyni laga xidhnaa muddo ayuu laga xidhnaa waxaan ku waa nolol furay waa la cabayaa haddana laguma filla ee waxaanu doonaynaa in loo kordhiyo oo ceel kale loo qodo ceel kale in loo qodo ayaanu doonaynaa ya marka saasu waxaan ku uri eeg deegaanka iyo dadkii kale ku soo guuraba ayuu ugu filaanaya haddii ceel kale la qodo ceelkuna waxaan ku uri waa dee sidaasu loogu filaanaya marka waxaan ku codsanaynaa in ceel kale loo qodo ceel kale in loo qodo oo si degdeg ah loogu qodo ya dadka ka cabaa uu farabadan yahay ceelka ee waxaan ku uri dee waxaan ku uri haddana kuma filla ilaa inta la iska yimaado waxaan ku uri ilaa Itoobiya ilaa waxaan ku uri waxa laga yimaadaa waxaan ku uri baligumadle ya dhan walba ayaa laga yimaadaa marka ceel kale in loo qodo ayay meeshu u baahan tahay meedad iyo xolo waa laga cabaa ya imka kasta waxba la dee laga cabayo ee ceel kale la qodo waa lagu oomaya imka ya uu fudud yahay imka waxa ka cabaa uu fudud yahay ya marka in ceel kale la qodo ayaa waxaan ku uri meesha ayaa haboon hay'adaha samafalka waxaan ku codsanaynaa ceel kale loo qodaan ya dararkii rigu darkuna waxaan ku uri waa wada waxaan ku uri wixii oo dhan waa isla wada jabeen ya marka waxa la doonayaa in loo qodo ceel kale maanta halkan aanu ku soo booqannay ujeeddada safarkaygu wuxuu ahaa inaanu indhaindhayno bal heerka biyaha ee riigga waddanka Kaahil oo muddo sanad iyo googo'a xilna aan shaqaynin laakiin markii wasaaradda khayraadka biyaha aanu la galagalaysanay ay noo suura gashay in la noo sameeyo oo la noo kiciyo riiggaas oo ay mar walba daynabadu xumaan jirtay daynabo cusubna loo dalbay ilaahay mahadii waxa weeyaan waan ku soo guulaysanay maantana waa ka shaqaynaya ee laga cabayo siday gudoomiyaha dacarto iga horeeyay hadalka uu sheegay biyuhu ay ku yarihiin deegaanka gaar ahaanna ceelkani xataa ka Farweyne kana xataa sidaa ku dhaama haddana waa kaasoo dararkiisa way maran yihiin wax yar oo aan waxba ahayn baa ku soo dhacaya xoolihiina saasay u dul joogaan waana deegaan ballaaran oo ilaa Itoobiya iyo Somaliland dhinac walba looga yimaado weeyi oo xadkii ku yaala waxaanu codsanaynaa in riigaga lanoo dib looga shaqeeyo haddii la sii dheerayn karo ama meel kale la saamin karo waxa weeyaan in maskaxda lagu hayo in meeshani ay biyo leedahay waa la hubaa inay biyo leedahay laakiin waxaad moodaa mar walba wararka waxaan ku maqlaa farsamada ka xun in ilaahay farsamadaan inoo hagaajiyo oo aynu biyo tan dhaama aynu helo waxaan leeyahay safarkaygu maanta wuxuu ku saabsanaa dhowr arrimood waxaa ka mid ahaa inaanu riiggan horta soo eegno bal heerkiisa uu marayo kadibna wada bariis oo iyadana riiggii la wado oo uu qodayo imika uu riiggii ku taagan yahay taana inaanu soo marno oonu eegno bal heerka uu marayo isaguna waxa kale oo soo maraynay waa jiilaal oo xagga biyaha ayaanu xoogga saaraynaa inaanu maaragtay xogogaal u sii noqonno tuulada la yiraahdo Cadroosh
oon iyadana ballaygeedii weynaaye dadweynaha aanu dhooba qaadayno oo cagaftii degmadu ay iminka ku jirto oo dhoobaqaadkeedii socdo iyadana bal heerka uu marayo dhoobaqaadkaasi iyadana aanu samayno annagoo deegaanka oo dhan noo qorshaysan ballayada baldadweynaha bal horta inaannu dhooba qaadno oo si roobka dambe yimaada dee muddo aynu ka manaafacaadsan doonno dee biyuhu waxa weeyaan waa noloshii dadweynaha waxa weeyaan noloshii dadweynaha waxa weeyaan waa baahida ugu weyn deegaankana ka jirta waxa weeyaan waa dhul oomana waa dhul aan laf lahayn halkaa ceelkii dhaboolaq baa ugu sokeeya halkaana dhowr riig baa jira waxaan u jeedaa allay baday laakiin degmada Faraweyne oo aad u ballaadhan iyo dacarta toona wax biyo ah ma laha wax weel biyooda ma laha waxaanu ku rajaynaynaa halkii bataanaha oo imika laga wado in dam weyn laga sameeyo inuu kaasina insha Allah inuu noo hirgalo dadaaladaasna waxa wada waa qorshaha xukuumadda uu hogaaminayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo wasaaraddiisa khayraadka biyaha. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد. هذا waxaan ku suganahay tuulada Wadabariis oo aan dul taaganahay riigii laga qoday deegaanka. Safarkaygana wuxuu daaranaa laba arrimood. Arrinta koowaad waxa weeyaan kuurgelida xaaladda biyaha maadaama inagu soo socoto muxuu ahaa ku jirno xilli jilaala deegaanada awgeynuna intooda badan ay yihiin deegaano biyo la'aan aad ay ka jirto oo aan lahayn barkado. Ujeedada labaadna waxa ahayd bal sidii aynu horumarkii iyo waxqabadkii aynu u sii kordhin lahayn oo aynu markaas u kurguri lahayn waxa aynu wax ku qabsananaa waxa weeye waa cashuuraha si bulshadu ay markaas ugu baraarugsanaan lahayd waxa ay bixistaan wixii ay helayeen inay ku xiran tahay oo aynu taana ku baraarugsanaano oo aynu cashuuraha markaas iska soo bixino. waxa hadda ku suganahay markaas riigii Wadabariis oo runtii aan horta marka hore Ilaahay ka baryayno in aynu isku nimaadna xilligeeda iyadoo dad iyo xoolo iyo xayawaanba aynu ka cabano oo Ilaahay uu naga siiyo biyaha aynu ka filano. Ilaahay baa raxmadda baa helay faatixada aynu marna marka koowaad si inuu Ilaahay ummadiisa soo haraadiyo. marka labaad injineerku si fiican ayuu u sheegay 283 mitir ayuu marayaa sidoo injineerku noo sheegi doono kale. waxaan jeclahay in riigana waynu arkanaayo riigii hore uu ka duwan yahay ceelkii hore aynu ka soo guurnay xaaladiisa laakiin waxaan insha Allah farsamo ahaan iyo muxuu ahaayay inaanu ilaalino anaguna la socono ka maamul ahaan oo ka warhayno insha Allah waanu ku dadaali doonaa kale odayaasha deegaanka u dhaaf doona. waxaan ku soo dhaweyn doonaa horta gudoomiyaha degmada balse kelmadiisa soo inoo yiraahdo. odayaasha reer Wadabariis marka hore waa salaamantiin. maanta ujeedadeedu waxay ahayd laba arrimood oo kuurgalka maadaama aynu ku jirno xilli jilaala oo kuurgalka balxaga biyaha iyo ku baraarujin cashuuraha degmada. labada arrimood baanu soconnay. saaka xarunta degmada ayaanu ka soo
kicitinay iminka waxa weeyaan lugtayadii labaad markii hore waxaanu soo marnay riigii wadda makaahiil oo markii hore muddo sannad iyo dheeraada fadhiyey iminkana wasaaradda khayraadka biyaha ilaahay khayr ha siiye ay noo kicisay saaka xoolihii baa ka cabbayey inkasta oo dayactir xagga taangiga iyo dararkuba ay dayactir weyn ay u baahnaayeen biyaha riigu soo saarana aanu sidaa u badnayn oo biyuhu deegaanka oo aad u ballaadhan aad ugu yaryahay lugtii labaad waxa weeyaan waxaanu maanta hadda aanu joognaa waddadii wadda bariis riigii baannu ag joognaa riigaasi kuwa hore waxbaa ka sisi noqday laakiin kani waa ka itaal yahay meel fiicanna wuu marayaa ilaahayna waxaannu ka rajaynaynaa inuu ilaahay biyo naga siiyo degaankani waxa weeyaan degaan aan berkada lahayn degaan aad oomana u ah ilaahay waxaannu ka rajaynaynaa inuu biyo lagu qabowsado inuu ilaahay naga siiyo ayaannu ku ducaysanaynaa maantana meel fiican buu marayaa alxamdulilaahi rabbialcaalamiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaamaya wafdiga nooga yimid degmada Faraweyne oo ilaa shalayba ilaa xadhig jarkii aqalkii xadhig laga jaray ku hawlana oo na soo gaarayaan aad iyo aad u salaameynaa waxaanu ku salaameynaa salaamta islaamka ta ugu qaalisan sidaa ka bacdi waxay noogu yimaadeen riigii oo la qodayo oo si fiican looga shaqaynayo oo shicib iyo farsamo yaqaanba aad reer wadda baris ay uga wada shaqaynayaan ayaguna aad iyo aad bay ugu farxeen annaguna sidaasi salaan wanaagsan baanu kaga guddoonnay kaamka wadda baris waa oomane wax barkada ma laha barkadii ku dhoweydna way maratay in ma arkaysaa dawladda iyo degmaduba ay biyaha aad noogu dadaalaan aad iyo aad baanu ugu baahannahoon uga doonaynaa annaguna sida kale way isaga wanaagsannahay aad iyo aadna waxaan sidaa iyo saasaan ku salaamaya salaanta ka bacdina assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu marka hore waxaan salaamayaa degmada Faraweyne kuwii qolada nooga timid ee guddoomiyihii ku-xigeenkii xogayihii oo ilaa shalay baanu wada joognaa oonu xadhigga kaga jiraynay degmada Faraweyne kaga jiraynay istooshin booliiskii halkaan laga dhisay aad u qaali ahaa mar labaad waxaan u mahadnaqayaa riiggaa noo yimidee aad iyo aad kii hore caamays buu ahaaye aad iyo aad u shaqaynayana waanu mahadnaqayaa mar labaad degmada wadda bariis waa degmo ballaadhan degmada Faraweyne aad bay u ballaadhan tahay ceelashii horena way ku biyo yaraadeen ilaahay waxaannu se ka baryaynaa kani inuu boqdhow noo noqdo saasaannu ilaahay ka baryaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bismillahi raxmaan raxiim waxaanu hadda ku sugannahay deegaanka Cabdiroosh waxaan dhex taaganahay balligii dadweynaha oo ay maanta ay dhex taagan tahay cagaftii degmadu ay dhammaantood iska kaashatay maamul ahaan iyo tuulo ahaanba iyagu ay soo iibsadeen oo maanta mid ilaahay loogu mahadnaqaa iyadoo ay noo soo qabanaysa waxqabadkii ugu horreeyey oo ay tuulada Cabdiroosh noqotay tuuladii ugu horeysay ka faa'iideysata waynu arkanaa oo waxa weeyaan waa taa ceelkii noo dhaabaqaadaysa waxaasi wax kale kuma iman waxay ku timid waa iskaashigeenna haddii aynaan iskaashan lahayn oo aynaan gacmaha isqabsan lahayna ma yimaadeen hantida aynu arkana markaa
alxamdulilah intaasi maadaama tubtii horumarka aynu ku sii jeedno waxaan jecelahay intaa iyo in ka badanba waynu qaban karnaa waddooyinkeenna oo dhan baynu samaysan karnaa wax kastoo meel kastaynu ka baahannahay hadday waxbarasho tahay hadday baahida asaasiga tahay hadday biyaha tahay inagu inteenna qabanana inta kalena waynu doonan karnaa haddaba waxqabadku waa faa'iidada ay leedahay bulshadu markay isku tashato sidaa ay iskugu tashatayna wax kale kuma imane waxa weeyaan waa cashuurta yar ee qof kastaba muxuu ahaayey uu soo bixiyo iyo inta yar ee kabkoo la isku daraa waxqabata intanu haysanaa waa intaa dadweynaha waxa aan leeyahay sidii aynu sanadkii hore muxuu ahaayey horumarka aynu ugu gaarnay faa'iidada maanta aynu arkano insha allahu sanadka 2000 waxqabadkeennii oo libilaabanna ilaahay haynala qabtee waxaanu diyaar u nahay inaynu samayno oynu intaa iyo in leego kalo iyo in kasii badanba aynu soo kordhisano waxaan leeyahay tawfiiqdiinna iyo midnimadiinnu waa midda aynu u dhisannahay quruxda degmaduna ay tahay waxaan leeyahay bulshada kale aynu iska soo bixinna markaasi cashuuraha oo qofku ha u arko cashuurtu inay tahay tu wax ku qabsanayo sida waxa aynu ku soo iibsano kale yuu arki qofku in culays kale la saaro waxa weeyaan sanadkiiba cashuuraha la soo ururiyaa dhinaca markan beeraha ka hadlayo mid way faa'iido u tahay qofku waa mulkiyadiisii weeyaan rasiirkeena uu qaadanaya dhinacna wax qabad bay ka too dee hantida aynu arkano wax kale laguma soo iibine waxaad keenteen un baa lagu soo iibiyey waxa weeyaan markaynu baahiyeeno oo dhan dhammayno waxaynu dhisi karnaa kolba tuulaynu dhisi karnaa markaynu baahiyeenna dhammaystirna asaasi ah sanadka xagaynu ka bilownaa meel heblaayaanba wada heblaayo aynu iskugu tagno waxqabad bay noo noqon waynu dhisin haddana tu kalaynu dhisin ninkii ilaahay gaarsiiyo tawfiiqdu waa ta ummaddu ay ku dhisan tahay waxaan leeyahay sidaa reer Cabdiroosh ay uga faa'iidaysteen hantidii ay lahaayeen ina degmada cagafta leh oo cid gooni ma laha waa hantideennii iyo wixeenii aynu isku jaabaynaynu ku keenay alxamdulilah haddana waa kuwa iyagu kharashka la sii galee shidaalkii iyo kharashkoogii haddana bixiyey cagafsiina aan u soo dirnay ee dhoobaqaadka ay u samaynayso gudoomiyuhu cagaftaa kale ceelkaa kale uu sheegana waa run intan waxay ku keeneen brief bay ku keeneen cid kastoo naga caawinaysana waxaan leenahay oo wax lana qabanaysa waxa weeyaan waanu soo dhaweynaynaa hadday hay-ada noqoto hadday xukuumadda noqoto oo uu hogaaminayo muxuu ahaayey madaxweyne muuse biixi cabdi oo ah xukuumaddii waxqabadka waxaan leenahay dadku maadaama uu deegaanku ku yaala deegaan oomana ah oo aan lahayn meelo lafa ah oo ay biyuhu ka cabbaan dadku wax kasta oo lagu fulin karo amba lagu xakamayn karo biyo la'aanta in la nagala shaqeeyo si ay dadkaygu uga habgar baxaan biyo la'aanta aadka u baahsan ee deegaanka oo dhan saamaysay mar labaad iyo mar saddexaad waxaan salaamayaa maamulka Cabdiroosh iyo dadweynahoogaba sida tawfiiqda iyo quruxda leh ee ay markaasi iskugu kalsoon yihiin ay markasta u jihaysaan waxaan leeyahay halkaa ka sii wada tulooyinka kalena waxaan leeyahay war ku dayda Cabdiroosh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maamulka deegaanka Cabdiroosh gudoomiye ku-xigeenka xoghayaha iyo guddiga xubnaha kale guddiga dadweynaha iyo ama odayaasha iyo waxgaradka reer Cabdiroosh waxaan idinku salaamayaa magaca islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib iminka 5tii baan joognaa saaka ayaanu soo baxnay safar dheer baan soo galay waxaanu safarkayaga ama kormeerkayagaasi uu nuxurkiisu ahaa u kuurgalka maadaama waqti adag lagu jiro dhinaca biyaha iyo xaaladda uu dadka iyo xooluhuba ay ku sugan yihiin iminka waxaan joognaa deegaankii tuulada Cabdiroosh ballaygii weynaa ee dadweynaha waxaa qodaysaa cagaftii degmada oo dhooba qaadaysa waxa weeyaan cagaftaas oo ay leedahay degmadu waxa weeye deegaankii ugu horreeyey ee ka faa'iidaystay
ee ka faa'iidaystay waxay taasina ku dhacday tawfiiqda ay leeyihiin reer Cadroosh ee aan leeyahay deegaanada kale iyaguna ha kaga daydaan wadajir baynu wax ku qabsan karnaa cagaftaasi cashuurtiinnii baa sababtay inaynu yeelanno oo aynu keenno waxaan idiin soo jeedinayaa inaynu halkaasi aynu ka sii wadno cashuurtana iska bixinno dadaalna annaguna waxaanu ballan qaadaynaa inaannu wixiinna si fiican oo cadaalad ah aanu idinku maamulno والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحيم اللهم صل على محمد aniga oo ah gudoomiyaha magaalada Cadroosh halkan waxaan marka u horeysa ka salaamayaa dhammaan cidii islaam oo dhan waan salaamayaa bacdiga salaan kadib waxaan gaar ahaan u salaamayaa madaxda degmada iyo dadweynaha reer Cadroosh oo waan salaamayaa mar labaad haddii aynu uga dhaadhacna arrimo ay hawsha halka ka socoto mashruucan waxa weeye alxamdulillaah ilaahay baa mahadle waxa weeyaan maanta mashruuc cagaftaa taagan ee socota waa tii degmadeena alxamdulillaah wali hore ugama shaqayn wax mashaariic wadi kara amba arrinoo ka hore ka noolaa ma jirin alxamdulillaah maanta wataa cagaftii shaqaynaysa ha shaqaysay haddana waxa weeye hawlo badan bay leedahay degmadu waxay nagu caawisay cagaftii annana waxaan ku hawlgallay haddaanu nahay reer Cadroosh shidaal iyo kharashkii kaleanu ku hawlgallay annaga Cadroosh ahaan dadku dee ninkii waliba wixii gubay wuu garanayaaye annagu ballaydaa hawlo badan baanu ballaydaa u gallaa goori ayaan gacan ku qodna waanu ka gaadhnay oo mari darteed ballaygaa ilmaan taagannahay jawaan baanu ku qodnay maanta se alxamdulillaah cagafaa dhex taagantay waxay noo tahay aad iyo aad bay farxad noogu tahay ugana mahad celinaynaa madaxda degmada uu guddoomiye horreeye maxamed cabdi gargaale iyo ku-xigeen maxamed xasan iyo xoghaye ismaaciil xuseen dhammaan iyo madaxda kale degmadu way mahadsan yihiin dadweynaha reer Cadrooshna waa mahadsan yihiin waayo tawfiiqda waxa weeyaan tawfiiqdu waa qaali ilaahay inuu siiyuunbaa hesha tii mashruucan socday iyo arrimadiisu waa taa tu kaloo codsiyaa jirta waxa weeye horta annagu dee waxaanu ku naalaa jeek waa oomane halka yagu dhaam kale dhabarkan ka ah kuwa maanta intaa howlgalkaa cagafkaa degmadii dadweynuhu iska kaashaday arrinka yagu kuwa ku dhammaaday ma nihin sidaa awgeed heedaha dawliga iyo kuwa maxalliga ah waxaan ka codsanaynaa iyo degmo ahaanba karaankeeda in sidaas si lamida la loogu dhoobo qaado ballaygii kale weynaa iyo taakula biyo wixii lanaga siin karoo dhan waananu uga mahad celinaynaa degmo ahaan aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa mar labaad anigu waxaan salaamayaa dhammaan degmo ahaan dadweyne ahaan waxaana ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لقوديان قلبت دح تاغني ما هذا لبادنا waxaan u naqayaa maamulka degmada Faraweyne gudoomiyaha ku xigeenka xogayaha marka xigta waxaan u mahadnaqayaa gudoomiyaha tuulaha Cadroosh waxaan kan ka sheegayaa oo ka cadeynayaa cidii daawataana ay arki doontaa cagafta maanta aanu ku intifaacsanayno ee ballaygii Cadroosh dhoobaqaadkiisii dhex taagan inay iska kaashadeen deegaamada Faraweyne iyo maamulka degmada Faraweyne iyagoo gacmaha haysta wax kastoo la isku kaashadana in sidaa midhadhalkeeda loo arkayo waa in loo ogaadaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh